anigoo kamid ah deegaankan farjanaana la yidhaha ama awsiciid magaala awsiciid waxaan ballan qaadayaa iskuulkaasi inuuna maranin oon ciyaalkaa gu iyo jiilaal laga waayin waxbarashada geed baanu ka soo bilownay siciid daahir siciid baa ilaahay noo soo diray halkan aanu maraynaa inaanu kor ilaa jaamacad ilaa meel ka sarreysa hor u soconno mooye inaan la waayin baan ballan qaadayaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi meeshan iminka aynu laga hadlayo ee la furayo waxaa ku bilaabantay geed galoola oo halkan dhismaan hortiisa ah oo waab ah ayaa classroom ku ahaa fasalka wax ku bartaan carruurtu waxa uu yaalay kuraas u ahaa qasaacadaha caananiidaha marka tiradii carruurtuna waa badatay maanta ilaa dhowr iyo 70 carruur ah ayaa halkan wax ku dhiganaya marka waxay noqotay bal waddanka inuu iska hawlo badan yahay uu iska hantiir yahay dhinaca private-ka dadka dibadda ah bal wixii ay ku darsan karaan iyagoo ay ka kici karaan dhinaca tacliinta oo ugu qiimo badan inaanu ku tallaabsanay oo aanu ka hawlgallay dad badan baa ka qayb galay oo lacag ku bixiyey dadkii deegaanka oo dhan tacabkoodii iyo xooggoodii ka shaqeeyeen waxaanu ku guulaysanay inaanu dhisno 2 class 2 fasal laakiin kumaanaan ekaan 2 class waxaanu ognahay magaalooyinka iyo tuulooyinka Soomaaliland meel ay yihiinba in ama hay-ad timaado ama dad sameeyaan oo 2 fasal laga dhiso oo la yiraahdo iskuul baa la dhiso laga dhaqaaqay sababtuna waxay tahay waxa weeye marka la dhisayo iskuulka macalinka la keenayo wax retention yani teacher retention wax la yiraahdo oo macalinka meesha ku haynaya looma sameyn marka 2 class la dhiso ee macalin la keeno macalinku dadka reer miyiga aqladood iyo waabkii seexan maayay ardaa ninka halkaa ka soo toosaa subaxii carruurta waxuma dhigi karo marka tala ayaanu bilownay aanu nidhi waa in taa wax laga bedelaa waxaanu bilownay in macallimiinta loo sameeyo aqalo ay leeyihiin oo macalinka u gaaro iskuulka marka waanu ku guulaysanay iminka 2 aqal baanu dhisnay oo meesha ku dhegan marka iminka taan u baahan waxa weeye wax kale maaha waxa macalinka miisaanka ardayda iyo macalinka miisaanka ardayda iyo lacagta waxa weeye tirada ardayda iyo macalinka qiyaasteeda sida carruurtu wax ku bartaan waa inaanay buuq badan hal macallin soo taagin waxaanu doonaynaa in macallimiinta loo badiyo oo macallinkii dhowr iyo 20 hadduu ugu bato 30 ay kuba badan tahay in macallinkii lagu beego marka waxaanu insha Allah ay noo noqonaysaa marka kalaasida la kordhiyo inay carruurta kala nafisto inay waxbarashadooda hagaagto marka hore horta ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaanu mahadnaqayaa dhammaan wasaaradda waxbarashada oo had iyo habeenba heegan u ah siday u gaarsiin lahaayeen dhammaan carruurta meelaha eeriyada ama miyada jooga sidii waxbarashada loo gaarsiin lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa taasina waa siyaasadda dawladda uu hogaaminayo madaxweynaheena Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marka labaad waxaan u mahadnaqayaa Siciid Daahir Siciid oo isagu nin wax weeyaan wax bartay ama qurba joog ahaa oo fahmaya waxbarashada waxa ay tahay taasina waxay macnaheedu ina tusaysaa in lagu daydo oo uu noqday Siciid Daahir Siciid qof ku daysho mudan maadaama uu gartay isagu in labadii galaasna sameeyo waxbarashada ardayda geedka hoostiisa ka kiciyo 2 galaas sameeyo 2 qolna uu sameeyo macallimiinta soo socotay weey in loo sii sameeyo 2 galaas si ay u galaan macalinkaasi aan uga tagin idamka ilaahay waxa uu doonayo waxa uu rajeynayaan way u suurtagelayaan haddii Allah yiraahdo ka gobol ahaan si gaar ah ayaanu la shaqayn doonaa iskuulkan waanu la socon doonaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hawd waanu kala shaqayn doonaa runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay goob caynkan oo kala inaan maanta aanu joogno annagii barasaabka gobolka Hawd maanta waxaynu joognaa deegaanka Habaasweyn ee ka tirsan gobolka Hawd ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu joognaa dugsigan oo ka kooban 2 fasal oo ay dhigtaan carruur aad u tiro badan oo aan haysanin furniture-kii iyo adeegyadii kale ee u suurtagelin lahaa waxbarashada hadday tahay macallimiinta iyo haddii ay wax kala tahayba waxaan u mahadnaqaynaa Siciid Daahir Siciid oo tacab badan geliyay deegaankan dugsigan dhisay ardaydan oo geed hoostii wax ku barta u dhisay 2 qol u suurtageliyay inay wax bartaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo waftigeedana uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Axmed Xasan Nuur Axmed Taajir
waxa ay maanta halkan ka dhagax dhigi doonaan 2 fasal wasaaradduna waxay ballan qaadaysaa inay qaadato kaalinteeda ku aadan dugsigan iyo dugsiyada kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay waxbaristooda ubadka mas'uuliyaddu ka saaran tahay labadaba. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan si gaar ah u xusayaa Siciid Daahir Aw Siciid oo runtii gartay inuu maxaaday halkan oo waabahayd inuu u dhiso waliba maca kadaalika uu ka sii fikiro future-ka mustaqbalka macalinkii goobta uu seexan lahaa. runtii mas'uuliyad ay lahayd wasaaradda waxbarashadu ayaad gudatay oo waajibkeeda aad ka soo baxday. waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Ilaahay kugu daro. bulshada deegaankan ee gobolka Hawdna waxaan ugu baaqayaa inay kaga daydaan Siciid Daahir Aw Siciid tusaalaha ku dayashada mudan leh ee tallaabada horumarineed ee aqooneed ee waxbarasho ee uu bilaabay. ummadi markay wax barato ayay meel gaadhaa. ummadi waxay wax qabsataa ama ficeeda ay gaadhaa markay wax barato. bulshada gobolka Hawdna waxaan dhammaantoodba ugu baaqayaa meel kasta ay ku sugan yihiin in halkan oo kaliya maahe in dugsiyadii boarding ahaa ee laga sugayay ama bulshadu ha dhisato ama dawladdu ha u dhistee in la isla kaashado insha Allah tacaala kolley baro saabkii cusbaan uu joogaa. runtii waxaan halkan maxaaday maanta aan u wada joognaa dhammaanteenba waxbarasho weeyaan. waxbarashadana miisaanka xasanaadka oo waxa weeyaan waxyaalaha ajarka lagu doono bay ka mid tahay. qofka qof bara wuxuu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam yiri qofka qof wax bara ama cilmi bara jidka uu dariiqada ku jiraana ay tahay waxa weeyaan wasiilada ku gaaraya jannada. marka dhammaanteen boorta jannada ku suganay taa ku bishaareysta. aniga ka shaqaalahan waxaaba farxad gelisay in macalinka aan keeni doono halkan uu heli doono hooy uu ku hoydo oo uu ku nasto. macalinka aan ku keeni doonaa wuxuu dooni doonaa meel uu ku hoydo, wuxuu dooni doonaa meel cunto ka cuno, wuxuu dooni doonaa aga fara badan oo u baahan yahay. maadaama hadaan ku keeno aanay deegaankiisa aanu haduu doono deegaankaniba aanu ahayn, laakiin waxaana farxad gelisay inaad hooy u dhistay. waa markii koobaad aan maqlo in macalin loo diyaariyay hooy uu galo isagoo halkan ka soo baxaya inuu halkan ardaydii uu galayo. taas aad baan kuugu hambalyeynaa. waana wax ka wasaarad ahaan aniga shakhsi ahaan iyo ka department ahaan ma farxad gelinayso ka wasaarad ahaan ayayna farxad gelinaysaa. waxaan filayaa inay dadka kale iyo madaxda kale ee wax qabanaysa ay kugu dayan doonto. waxaananu aad uga wada shaqeyn doonaa shaqaaleysiinta gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shiine. waxaananu aad ugu dadaali doonaa maadaama aad nagu wareejinaysid maanta iskuulkii inaanu shaqaaleysiinta cusub aanu qaadanayno aanu ku darno insha Allah bidmilaahi kariim. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. aad baan idin wada salaamaya. waxa farxadii ah inaan dhagax dhigo ka qayb qaato dhagax dhiga iskuulka. aad iyo aad baan runtii ku faraxsanahay. dadaalka aad samaysay ee keliga aad qabatay waxay muujinaysaa qofku inuu wax badan qaban karo keligii iyadoo aan cid kale ku tiirsanayn. Siciid aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa. ilaahay ha ku barakeeyo. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta waxa weeyaan idinkana aad iyo aad baad u dadaalaysaan. siyaasadda xukuumaddan uu hogaamin ka dhahdoonka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa siyaasadeeda inay gaarsiiyo gobolada iyo tuulooyinka iyo meelaha miyada ka baxsan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Siciid aad buu mahadsan yahay waayo uu dadaalay umadiisana uu dhaqmaday. 2 galaas ardayda uu dhisay, 2 gurina 2 maqsinna wuxuu dhisay macallimiinta iman doonta. waxa weeyaan hubkiisa isagoo dhameeyay halka uu ku dhameeyay. insha Allah anigoo ka rajeynaya inuu si wada hawsha halka inuu ka hadhin. anagu wasaarad ahaan 2 galaas baan ku biirinanaa oo maanta aanu dhex dhigana. sidoo iskuulka u dhamaado 2 galaas waan ku daranaa iyo the office iyo store-ki iyo mas'uuliyiin hablaha ah iyo namada oo kala ka noqonayo. insha Allah intaan waan ku daranaa ilaahay oo fududeyn doona. haddii wax weyn mashaakilka iskuul waa la dhisaa laakiin arday lama helo amba la kala tagaan. qaar baa ari lagu xiray, qaar baa xaas galaan, wax walba way jiraan. kulka wax weeyaan arday waa in loo helaa iskuulka. taabka Siciidna khasaarin dawladuna inuu khasaarin waa in ardayda la keenaa. waa inuu haduu leeyahay 2 caruur haduu leeyahay
midna gelika hore ha soo diro midna gelika dambe ha soo diro waayo xoolihiina sana u baylinta ila xoolahaynu ku nool habe xoolihiina ha loo raaco waxna ha la barto waayo jahligu waa madow waa madow waa qudur cilmiguna waa nuur horuu العلم نور والجهل ظلام بنك عربيتي كل كا waxa weeyaan hawsha waynu qabananaa waynu dhaxdhiganaa siciido saadisku hogaan